surprise party شلون صوب الأرضي معناته حقصوا الدنيا هذه أنا بين الله مدرب التنبيحة أنا أقوم هذا هنا شقيسي عجيب هاي كل سنة تصرفك وغابك ومجنونك اليوم يمكن بلغة ونظامي نتقل ودليل so this is our company أنا أقوم هذا هنا بداية السديري أها وقاري كمبلغة وقاري لا وكاتب تاني ومسكحني جدا بيسي ساعة تليه كنا إنه ما نغير هذا عن برخة البضالة إسلا جان قاري كلام أنا أقوم هذا إنه ما تاني أنا بس كل جوبان أنا وقت مسوكو بينا وأنا ما كان من دمي هذا عمله ما إن شاء الله أفضل طرف إلى هذا الطبقة يا الدروس جاء كلمة وضع الدروس شلون أفضل أو تشيف فاينانس ذلك البدل لو قلنا جري هاي مستفاد رئيس المانجر مستر محمد أو construction manager Mr. Bakar ya our consultant manager Mr. Merane Mr. Hassan Musa Merane شنطة صفوة ظهر أنها ظرف كستا وعمامة عن كل عمامة إنه كلا قطع هديد المدرسية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. runtii ma malaynayno doo u gaatay waxaan aniga waqtiga surprise ka sameyn lahaa moogtay laakiinse dhimay maalin kale ma ahaan ciyaar waa gelin dambe intaa ka bacdi runtii aad baan ku mahadcelinayaa gacmaha wada jir bay wax u qabtaan haddaynaan idinka ahayn anigu waxba ma qabteen sideedaba waxna waa injiinka waxna waa boodhiga la'aantii injiin waxma taho injiinka la'aantiina boodhi waxma taho gacmana wada jir bay wax u gooyaan waxa weeye wada jir ayay ummaddeenu iyo dadkeenu iyo shirkaddeennuna meel ku gaari kartaa hadday tahay caqli la isku darsado cilmi la isku darsado xoog la isku darsado qof keliyihii fool keliya maxay odhan jireen far keliya fool ma dhaqdo ma jiri karto mana dhici karto hal qofi inuu keligii wax qabto hadda ka hor waxaan xusuustaa mar aan idhi iyadii baan odhan doonaa mar aan idinku idhi is-ictiraafa oo nin walba ninka kale roolkiisa iyo mustawihiisa iyo shaqadiisa aqoontiisa cilmigiisa waxqabadkiisa ha tixgeliyo oo ha ictiraafo hadduusan jiro superman oo wax walba isagu ka jawaabaya oo shiikhulberri walba halaya oo shaqada operationka qaban kara oo caqligii keeni kara oo cilmigii keeni kara hadduu jirana aan isaga u dayno shaqada taa waxay muujinaysaa marka inaan midigi aysan bidix ka maarmin midigi inaysan bidix ka maarmin bidixna midig ka maarmin sidaa darteed hawli waa isla qabasho qof keliyihii macno ma samayn karo waxaan anigu in badan aan jecelahay inaan dhiirigeliyo isu tagga bulshadeenna hadday tahay shaqaaleheenna hadday tahay dowladdeenna hadday tahay ganacsatadeenna hadday tahay aqoon-yahankeenna sidaa darteed dal iyo dad iyo shirkadna waxaa lagu horumarin karaa wada jir iyo wax isla qabasho waana mahadsantihiin aad iyo aad